madaxweynaha dowladda Puntland ayaa joojiyay dhismaha deegaanada dowladka daaqsimeedka deegaanada Puntland kalkacayo 6 Luulyo 2020 madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dine ayaa soo saaray wareegto LRC oo ku beegan kuna saabsan joojinta dhismaha iyo sidoo kale deegaanaynta dowladka daaqsimeedka deegaanada Puntland wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee dimuqraadiyadda dowladda Puntland wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada wasaaradda amniga DDR taliyaha ciidanka daraawiishta taliyaha ciidanka booliska ujeedo joojinta dhismaha iyo sidoo kale deegaanaynta daaqsimeedka dowladda Puntland waxaa dhammaan wasaaradaha iyo sidoo kale taliyaasha ciidanka booliska iyo daraawiishta ee la faraya in wareegtadan si toos ah ugu socota in ay laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha 7 2020 in la joojiyay dhismayaasha iyo deegaanaynta daaqsimeedka deegaanada Puntland dowladda Puntland waxa ay soo saar doontaa habraac iyo shuruudo gaar ah oo loo marayo deegaanada cusub ee deegaanaynta Puntland wareegtadan ayaa waxa dhaqan galinaysa marka uu madaxweynaha dowladda Puntland uu saxo waana uu saxay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dine Xuseen Xasan Cadde telefishinka caalamiga Kalson TV